asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa koonfur galbeed Nigeria. qabaa'ilkiisu waa kuwa ugu dhaqankiya dabeecadda adag dadka ku nool Nigeria. waxa uu ku aftirsadaa Ingiriiska isagoo dalkaasi matala. qofka aan ka hadlayo waa daayirka kooxda Arsenal, Bukayo Saka. micnaha ku hoos qarsoon Bukayo iyo asal ahaan sida Nigeriaanku micnuhu ugu leeyahay. sababta ku qasabtay inuu kaligiisa noola noqdo isla markaan uu ka fogaado dumarka. waqtigiisa Arsenal iyo cidda ka caawisay in uu qol ku yeesho kooxda koobaad. bilowga xirfadiisa ciyaaraha iyo kulankiisii ugu horeeyay Premier League sida uu u barakiciyay Ashley Young oo Manchester United intaasi in ka badan ayaan ku baran doonaa muuqaalkan oo si gaar ah ugu falanqoon doono taariikh nololeedka daayirka kooxda Arsenal, Bukayo Saka. daawada haddii tahay markii kugu horeysay aad soo booqanaysa qaybteena YouTube-ka ee xulashada ciyaaraha waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saarto gambaleelka furato muuqaalkanna like iyo share aad u sii dhahdo saaxiibada kale. sidoo kale qaybteena page-ka Xasan Ilyas haddii aad naga soo booqanaysana like iyo follow noo dheh si aad kaga mid noqoto saaxiibada halkan aynu ku xiriirno. mahadsanidina. xirfadiisa qofna kama qarsoona. dadka badankiis waxay ugu yeeraan Ronaldinho Arsenal. qaarkood waabay ka weynaysiyaan oo waxay ugu yeeraan Ronaldo ama Messi-ga Arsenal. dad badan ayaa aaminsan in uu ku noqon doono kubadda cagta saaxir kadib Messi iyo Ronaldo. da'diisu haatan way yar tahay laakiin waxqabadkiisa aad ayuu u weyn yahay. waqtigiisa ugu badan ayuu siiyay kubadda cagta isagoo iska iloobay haasaawo iyo inuu saaxiib la noqdo dumarka. qof kasta wuxuu u arkayaa inuu yahay garab weerarka ugu fiican kubadda cagta Ingiriiska. si kastaba ha noqotee in yar ayaa la tixgeliyaa taariikh nololeedkiisa marka ay timaado in laga faaloodo Bukayo Saka. Saka wuxuu dhashay 5 Sebtembar 2001. waalidiin reer Nigeria oo soo haajiray magaalada London ee boqortooyada Ingiriiska ayaana dhalay. waalidkiisa oo soo garooti ahaa waxa ay si weyn taageero ugu hayeen kooxda kubadda cagta Arsenal ilaa ugu dambeyntii wiilkooda ay kaga helaan fursad kooxda akademiga ee Arsenal. markii uu dhashay waalidkiis waxay u bixiyeen Bukayo. magacan waa mid si weyn saameyn ugu leh qowmiyadda uu ka soo jeedo xidiga ee ku nool koonfur galbeed dalka Nigeria. Saka waxa uu ku koray magaalada caasimadda Ingiriiska ee London. taasi waxay ka caawisay inuu helo fursado badan si uu u rumeeyo riyada aabihiis oo ah inuu maalin uu arko wiilkiisa oo kubadda cagta ciyaaraya. sida in badan dadka reer Nigeria ee u soo haajiray Ingiriiska waxa ay taageero u ahaayeen kooxda Arsenal oo inta ugu badan Afrikaanta soo galootiga ah ay taageeri jireen marka la eego kubadda cagta. waalidka Bukayo Saka oo ka soo haajiray Nigeria waxay ku jireen kumanaan iyo malaayiin qof oo Afrikaan ah oo u saxabatumi jiray kooxda kubadda cagta ee Gunners. taasi oo ugu dambeyntii ka yeeshay wiilkooda inuu xirto maaliyadda kooxda Gunners. maalin maalmaha ka mid ah aabaha Bukayo Saka ayaa warqad furan u diray akademiga kooxda Arsenal. waxaana uu u cadeeyay inuu haysto wiil yar kaasi uu doonayo in tijaabo laga qaado. qof kasta ma uusan filayn jawaabta Gunners waxaana ay siisay fursad furan taasi oo ah ku soo biir akademiga oo muuji waxa aad adigu doonayso. taasi waxay farxad gelisay Bukayo Saka aabihiis. si durbaba uu wiilkiisa horumar u gaaro ma uusan daahin waxaana uu ka soo diiwaan geliyey akademiga kooxda kubadda cagta ee Gunners. halgankiisii dheeraa Saka waxay ka caawisay inuu si degdeg u shaqeeyo isla markaana uu ku soo baxo mid ka mid ah ciyaartoydii ugu fiicnaa akademiga kooxda Gunners. intii uu ku jiray xerada tababarka ee daayirta waxa uu la kulmay Thierry Henry, Dennis Bergkamp iyo Frank Lampard kuwaasi oo dhammaantood siiyey cashiro dhiirigelin iyo tababaro fudud si uu u gaaro heerka uu tiigsanayo. ciyaaryahankan markii uu ku jiray akademiga 15 sano jirada Frank Lampard halyeyga Arsenal wuxuu siiyey cashiro taasi oo wax badan ka caawisay inuu noqdo ciyaartoyga maanta uu yahay. waxa uu Lampard saadaaliyay isaga in uu noqon doono ciyaartoy weyn oo kooxda koobaad qabsan doona
waana ay dhacda taas 17 sano jirkiisii ayaa loogu yeeray ciyaartooyda ku hooseysa daadooda 23 sano jirada qaab ciyaareed qurux badan oo halkaasi uu ka sameeyay waxay keentay in si dhaqsiyaha ugu talaabo kooxda waaweyna tababarihii Gunners Unai Emery ayaa ka helay qaab ciyaareedka wiilkan bidixeega ah waxaana uu durbaba ugu yeeray kulankii finaalka ee tartanka UEFA Europa League kaasi oo Arsenal ay la ciyaaraysay Chelsea xilli ciyaareedkii 2018-2019 waxaana uu ka mid noqday saaxiibadii Arsenal ee nasiibka u yeesheen inay u safraan magaalada Baku ee caasimadda Azerbaijan dhamaadkii 2018-2019 Aaron Ramsey iyo Alex Iwobi oo booska ku ciriirinayay ayaa ku kala biiray Juventus iyo Everton taasi waxay fursad u soo ifisay Bukayo Saka isagoo boos ka helay qolka koobaad ee kooxda Arsenal 19 September 2019 Bukayo Saka waxa uu xifaaltan adag kula galay booskiisa Reiss Nelson iyadoo labada ciyaartooy ay u soo dalaceen kooxda koobaad laakiin Saka ayaa tartanka ku badiyay ciyaartiisii ugu horeysay laba caawin ayuu sameeyay markaasi oo Arsenal 3-1 kaga badiyeen kooxda Eintracht Frankfurt ciyaar ka tirsanayd wareegga hore ee tartanka UEFA Europa League markii Bukayo Saka ay u rumowday riyadiisii caruurnimada ay ahayd inuu dhaliyo goolkiisii ugu horeeyay ee kooxda kubadda cagta Arsenal durubaba waxa uu bilaabay inuu waco aabihiis isla markaana uu sheegay inuu gool dhaliyay aabihiis ayaana aad ugu farxay 18 sano jirkiisii oo ay u raacdo 125 maalmood Saka waxa uu noqday ciyaartooygii ugu daada yaraa ee Arsenal taariikhda Premier League ugu soo bilowdo kulanka Manchester United Arsenal ay la ciyaarayso waxa kale oo uu ka yaabsaday taageerayaasha markii uu barakiciyay Ashley Young sida waqtiga lagu sheegay Bukayo Saka waxa uu ahaa xidig yar oo aad u firfircoon leena aragti fiican Lumberg oo ahaa mid ka mid ah macallimiintii dhalinyarada Arsenal ayaana ku sheegay waraysi uu bixiyay Bukayo inuu maalin maalmaha ka mid noqon doono ciyaartooyga ugu fiican kooxda koobaad ee Arsenal si aad ugu guuleysato nolosha waxaad u baahan tahay oo qofku garab istaaga gaar ahaan dumarku waa qaybta asaasiga u ah nolosha marka ay timaado horumarku ragga ay gaaraan laakiin si ka duwan taas Bukayo Saka waxa culayska ugu badan uu siiyaa shaqadiisa kubadda cagta isagoo iska iloobay haasaawe ama inuu sameeyo dumar saaxiib laha wax badan marka laga hadlayo taariikhdiisu meelna kama soo galayso inuu leeyahay saaxiib ama xaas taasi oo keenaysa Bukayo Saka inuu daacad u yahay horumar uu ka gaaro kubadda cagta Bukayo Saka waxa uu ku faanaa abtirsiimihiisa iyo xidid ahaan inuu Nigeria ka soo jeedo labada waalid ee dhalay ayaana si weyn u baray dadkiisii qowmiyadda koonfur galbeed Nigeria ku nool kuwaasi uu aad ugu faano Bukayo Saka xubno ka mid ah qoyskiisii iyo ehelkiisa hooyadiis aabihiis walaalihiis iyo waliba adeeradiis ayaa waxay haatan qaadanayaan faa'iidooyinka uu ka keenay kubadda cagta waxaana uu dhammaantood isugu keenay magaalada London halkaasi oo guri weyn uu ka dejiyay xilligan la joogo xubnaha qoyskiisii iyo qaraabada dhammaantood waxay leeyihiin fikrad isku mid ah taasi oo ah in kubadda cagta ay caawisay qoys aad u liitay ka soo barakacay Nigeria soo galooti iyo qaxooti ku ahaa Ingiriiska dunida kubadda cagta casriga ah waxay abuurtay toosh iyo fariimo badan taasi oo baraha bulshada lagu muujinayo waxaa lagu tilmaamaa Saka maanta mid ka mid ah daayarta ugu fiican kubadda cagta waxaana uu haystaa dalabyo ka imaanaya kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub cidna ma filayn wiil yar oo reerkiisu ay ka soo barakaceen Nigeria soo galooti ku yihiin Ingiriiska inta ku dhashay England akademiga Arsenal uu galo horumar uu sameeyo maanta uu xiran doono maaliyadda nambarka 7 ee kooxda kubadda cagta ee Gunners dhinaca xulka caalamiga Bukayo Saka waxa uu go'aansaday inuu u ciyaaro Ingiriiska isagoo haatan ka mid ah ciyaartooyda ugu fiican ee xulka qaranka kubadda cagta England waxaana uu ka qayb galay tartankii koobka qaramada qaaradda Yurub waxaana uu ku jiraa liis ciyaartooy la saadaalinayo inay saameyn ku yeelan karaan koobka dunida ee sanadkan ka furmi doona dalka Qatar guud ahaan daawadayaal muuqaalkan oo si gaar ah ugu falanqoonayay taariikh nololeedka xidiga kooxda Arsenal Bukayo Saka inta isku gabagabeynaya mid lamid inta ku kulmi doona nabadgelyo